marka aad marayso wadooyinka magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya waxay indhahaagu ay qabanayaan calamo ku xirnaan goobaha ganacsiga ee wadooyinka magaalada Muqdisho taasoo maamulka gobolka Banaadir uu ku sheegay mid uu ka ogol leeyahay sidii loo weyneyn lahaa maalmaha toddobaadka xurriyadda oo ku weyn ummadda Soomaaliyeed maran maanta gaaray wadooyinka magaalada Muqdisho iyo goobaha ay u dalxiis tagaan shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir ayaa waxay indhahaygu ay qabanayeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo ku howlan sidii munaasabadaha lagu xusayo toddobaadka xurriyadda ay ugu dhici lahaayeen caasimada Soomaaliya ee Muqdisho gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basma Caamir Axmed waxa ay sheegtay inay ka shaqeynayaan bilicda caasimada Soomaaliya ee Muqdisho waxayna ugu baaqday shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir inay ka qayb qaataan toddobaadka xurriyadda sidaad arkaysaan waxaa la dhisay wadooyin ayuu dhagax dhigay gudoomiyaha qaarkood ee laamiye la dhisay oo lagu maamuusayo lagu weyneynayo xuska maalinta 26 Juun ee Soomaaliyeed waxaan sameynay calameen magaalada oo dhan dukaamada iyo goob kasto ganacsi ah sidaad arkaysaan waxaa suran nal iyo calan iyo nalalkii quruxda badnaa ee loogu talagalay munaasabada waxaa socoto nadaafad campaign ah oo magaalada Muqdisho ah dhamaanta degmooyinka gobolka Banaadir ee ka sameynayaan iyo bulshadii isku duuban ammaanka magaalada Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana la sii xiray wadooyin muhiim ah oo ku yaala magaalada Muqdisho taasoo dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay ka gol leedahay sugidda amniga magaalada Muqdisho isla markaana maalmaha munaasabadaha toddobaadka xurriyadda ay ugu dhici lahaayeen magaalada Muqdisho si nabadgelyo